daawadayaal soo dhawaada maanta waxaan bilaabanaa xalqadii labaad Blue Exorcist tana waxay ka xamaasad badan tahay xalqadii hore. xalqadan waxay ku bilaabaysaa Shiro Fujimoto iyo Rin oo la kulmay bahalo aad iyo aad u waaweyn. waxaynu aragnaa cunug yar oo jirkiisa jingalayo saaxiibadiisana aad ula yaabayaan. wiilkaasna hamigiis waxa weeye inuu Rin dilo. waayo xalqada koowaad ayaan ku saaran asaga iyo Rin oo isfeeraya. Shiro Fujimoto iyo Rinna waxay u cararayaan halkaasi kaniisadda waxayna nimanka u sheegayaan in la soo weeraray waxaana soo socda shayaadiinta waaweyneed si ay u qabsadaan kaniisadda. markay saa kaniisadda u galaan Rin wuxuu maqlay dhawaaqaasna waxa ay jimanka ama shayaadiintii oo raba inay soo galaan kaniisadda. Shiro Fujimoto wuxuu qolka sirta u kaxeynaya Rin halkaas uu ku tusay seefta ahayd Kurikara. wuxuu u sheegay in lagu xakameeyo awoodaha jinka ee Rin. markii seefta Kurikara Rin la siiyay waxa balaan kor lagu arkay shayaadiinta ama jimanka kuwaas oo arbay inay u soo gudbaan kaniisadda. Shiro wuxuu Rin u sheegay in walaalka Yuki uusan dhexli karin awoodaha jinka ee aabihiis. waxaa kaloo balaanka ku aragnaa jimankii oo taagan balaanka hore. waxaa kaloo imaanaya wiilka lagu magacaabay Reichi ee ku jiray jimanka. Reichi markuu damco inuu kaniisadda u gudbo waxaa jeeraya gaari. qofka ka soo degana wuxuu moodayay inuu qof bilaadan uu dilay inuu naftiisa dhaafiyay. balse muusa qofku jeer inuu yahay shaydaan isla asagiina waa la dilayba. Reichi markuu gaariga qaato wuxuu ku jibinayay darbiga kaniisadda halkaas oo ay ka soo galiyaan bahladii ama shayaadiintii. Reichi wuxuu isla markii soo weeraray Rin laakiin waxa ka badbaadiyay nimanka kaniisadda. Shiro Fujimoto wuxuu kaxaynayaa Rin wuxuuna ku leeyahay meesha iskaga tag asagoo aad ula hadlaya. Rin marka albaabka lagu xiro waxaa aragnaa nimanka kaniisadda iyo shayaadiinta oo hortaagan laakiin Reichi wuxuu sameeyay inuu dagaal bilaabo meesha ka bilaabo laakiin Shiro Fujimoto wuxuu la soo baxay jabshihiisii. dadka kalena waxaa aragnaa Yuki oo waxba ka ogaan kaniisadda waxa ka dhacaya. kaniisaddan waxa ka bilaabmay dagaal gacan ka hadal halkaas oo Reichi uu ku dilay dadkii kaniisadda joogay ama ka shaqeynayay. isagana wuxuu isku bedelay mid aad iyo aad u awood badan. isla markii waxaa aragnaa Rin oo ka soo baxay qolka lagu xiro oo rabo inuu badbaadiyo nimanka kaniisadda laakiin waxaa arkaynaa Shiro Fujimoto oo jabsho ku haya wiilkii uu jinka ku jiray Reichi. Shiro Fujimoto wuxuu mar labaad ka saaraya jinka wiilka ku jiray asagoo mid ka dhigay mid sidii hore ka fiican oo ka caafimaad qaba. waxaana la tusayaa Rin oo ku qeylinaya aabihiis oo karsada Shiro. Shirona wuxuu bilaabay inuu wiilka reer darbaxa ku dhufto. Rinna wuxuu meesha ka dhaaqaya asagoo aad iyo aad uga xanaaqsan. laakiin si xun meesha waxa ka bilaabmaya dhacdo kale oo aad tii hore uga daran. Shiro Fujimoto waxa galaya shayaadiintii. halkaasna waxaa ku aragnaa Shiro isku bedelay shaydaan weyn laakiin nimanka kaniisadda waxay damcayaan inay badbaadiyaan. iyaga laftirkoodana wuu gubayaa. Shiro Fujimoto wuxuu rabaa inuu dugta keeno shayaadiin kale. Rinna wuxuu la yaabayaa shayaadiinta marka dambe soo badanaya. Rinna wuxuu isku bedelay asagana bahal kale. Shiro Fujimoto aad buu u qoslay waayo wuxuu rabay inay ku soo biiro kuwa shayaadiinta. Shirona wuxuu kicinayaa Rin si ay shayaadiintu u qaataan. Rinna wuxuu la yaabayaa dhaqamada uu ku sameynayo Shiro. laakiin si nasiib wanaag Shiro wuxuu ku soo noqonayaa sidii hore asagoo isgelinaya bahasha uu watay ama bahasha looga hortago shayaadiinta. Rin wuxuu aad uga murugoonayaa aabihiis oo korsaday hortiisa ku nafbaxaya wuxuuna ku dhacayaa meesha shayaadiinta. Rinna aad buu u qeylinayaa. Rinna wuxuu soo xasuusanaya asaga iyo aabihi dhacdooyinka soo dhex maray wuxuuna seefta kala baxaya galka. seeftana waa seefta lagu xakameyn karo awoodiisa waana seefta head Kurikara. waana seef laynaysa wax dhammaan meesha jooga jinniya. Rin markuu dhammaan lahayo wuxuu meesha shayaadiin jooga waxaana tusayaa Shiro meedkiisii iyo Rin oo aad ugu ooyaya aabihii. meeshana waxaa imaanaya Yuki oo walaalka Rin wuxuuna arkayaa Shiro Fujimoto meedkiisii iyo Rin oo meeshaas ku ooyaya. xalqadan maanta intaas ku egtaa.